jamaal waxaad ka mid tahay dhalinyarada qurba joogta ee ku nool wadankan Jarmalka mideeda kale sanadka markii waa 2014 waxaad ka mid tahay dhalinyaradii ka hadashay arrimaha tahriibta dhibaatooyinka iyo silaca ku soo maray saxaraha Liibiya iyo hadduu Ilaahay ku diidin badii 2014 ilaa ay haatan hadda waxa laga joogaa say ila tahay 3 sano iyo 2 sano oo maanta waa sanad cusub waa bishii January waxaan ku leeyahay markore sanad wanaagsan haye maxaa noloshaada iska bedelay waagi ilaa ay haatan waagi ilaa 3 horta muddo 3 sano horta dadka asxaabta hore waan ugu sheego halkii maanta filimka hore aad ku tagtay waraysiga qaaday halkan bay ahayd halkii bitaan saarayay aan isku laayeen meelahan bay ahayd waan gartay asxaabtu waxay leeyahay magacayga hore wataan maanta ku sheegay filimkan video kan waxa la yiraahdaa aan gaanga gees Idros Allah haye waa aniga maanta soo noqday صح way ikan maalintii Afrika soo dubay ku burwaaqo waxa joog iyo waxba saaqaa calan bul xalku صح maanta waa ka soo arkaa abyad ka daadsan waan gartay nimcadu inay isu gudiyayso haye anagu ilaa maalintii dalka waan iska joognay aqalkii waa ka soo noolayn iskuulaan iska tagaynay waxba iska baranay laakiin wax rajo wadanka aanu ka haynay haye ma jirin waxaan lahaa Soomaali ma sidaan Soomaali balwatan aakhira laga xiriyo doonyaha la saariyo Soomaali ka kala yaacay waxba la sugu jiray haye laakiin waan u samiro 3 sano halkaasaan u jiifnay 3 sano maanta sharciga waa noo soo dhacay waan haynaa maanta waad haysaa sharciga horta sharci maanta imika gacanta ku haynay leeyahay waa kan ma hay laakiin ididiiladaydi waan haystaa bisha 23 keeda ayaan waxay ka soo qaadanay meel ka soo leeyahay Johnson haye anu xaadiraya haye waxaan nin dhalada marka saas oo faasanaya aan gaangankiis ay daroos oo wixii si qaatay rafaadkan soo mariyay saxari wata horiid ka soo sheekiyay bal wadankiina dib waan soo noqon booqasho dib waan soo gali waatan laha hadii la noolaado mar waan iman صح sharciga horta hadii imika sanadka gacanta soo galo sanad dambe ama sanad ay bardan waan xoogstay waan xamaalan waan galay imika adduunyaha haystaan haye أول هذا ماشي يستعمل حمل يرون تروح شرع ما هيسطع محاط قانا تتسس من يجري قد رب السلام وقوله ما كنت تستمر بس تكون هلا بالي يجري أساس كيف رفات كيف يبغى تطلع رفات كله سماه خلاص حكنا بيست دي ما تشرع عجي هلا تود كمان إيمان تدك ود كي تروح علينا هاي وأخرف كان أنا مرة صومرين إيه ود كي يمكن الدولة دورتي سجال بلان سجال شبلان أنك كان يعيد درشة كلا الرمى بدنا بأشره تيم ده waa dhacaysa anagu waan soo socnaa wadanka soo shaqo taginaba sabir sharciga inta heer madoon diyaarada soo raacayna de wadanka inuu kiwana de argu halkaas maraya jamaal marka shalay waxa dadkii waxa ay dhalinyaradii ka wacyi gelinay arrimaha taariifta dhalinyarada kale maantana hadalkaaga xoogaa isbedel yar ka muuqda maadaama aad leedahay sharciga waan helay wadanka dib ugu soo noqonaya sababta wadankii aad dib aad ugu noqonaysa maxay tahay caqabada ku hayso haatan maxay tahay wadankii awal hore waxaan wadanka uga ma taqaanaa إنا محصور كرسو هاي وده إلا آخرية دوك ميلون بالله شقة يستعي واساس إنا ما أخرج قسنا ما دوك هاي دايما قلت واحد وده كان كل قايمكم ما هي شرع جلفت ده شرع قلنا الله يشوي لي أنا سوق لي ما هي شرع ما كان حب بهني وتتعب يحوكس يشقوا بهني دي هي التعب يشقوا بهني دي حدي حتى أنا وقت كل حب برانو ده كمان شقينا كان وقت كان شقينا في سمادنا لبرو ده وقت كان الله يمنا واساس ده نحن اللي وقت كي تروحون صابرنا إنا يجلس يبرر أنو فايدينه صح دمي حاج أنك كان قيس عايدر شو ينسى صعب فرسمادين وين برياية يفرق كراسي سجان الليل dadkii uu ku sugayaan way sugayaan waxa bartaarta inay u faa'iideyso ana waxa badan inay afka okay dadka maxaa u diiday marka in ayaga waxa haatan aad baranaysa inay halkan yimaadaan ay bartaan demi xaya soo gal keenay kooda aragtay haye adba waa soo martay soo baxay 2000 ka soo baxay 12 haye imikana waa imisa 17 shan sanadood ha de xoolaha ayaan isku mid baan nahay waa sax de shan sanadood iska luminay waa kii anaga naga luntay 5,000 iyo waxa naga luntay iyo $20,000 baa naga luntay haye حاجان هو كنا بروتاس $20,000 naga soo baxay iyo 5 sanadood mar waqtiga inta laga lacagta inta leen xilmi nagu soo noqon marka shaqeysay kadib marka shaqeysata ha maxaa dhintay marka dib gaboobi haye xafaarid kale waxay soo gurguran marka haye marka maxaa yaalaba ana xalay dhalinyarada ana idin faa'iidanayay sabro jooga ciid hooyan lii adiga lagu sugay had 19 qadiyahay naftinoo daayay lama kale haduu ilaahay naftinoo daayay insha Allah biidmillaahi kariim marka hadda maxaad ugu baaqaysaa gabagabadaada iyo gunaanadkaaga hadalkaaga muxuu yahay marka maxaad dhalinyaradii leedahay mideeda kale noloshaada adiga maxaa iska bedelay ana sharciga ahayna hadda aad sheegaysid noloshayda hal mid baa noloshayda wax la sidii aan ahaa ayuun baan ahay ma shaqeeyo horta oo shaqo maan helin wali sax ilaa maalinta ka fiican soo dibay ilaa maanta buug iyo qalin baasit haye meelaha kaas ku socdaa waligeega may dhamaan
waxyaabaha barata maxaa ka mid ah waxaa lay baraa farsamooyin badan sida mechanical-ka biragogoynta elektroniga waxyaalahaasaan bartaa haye luuqadana adigu luuqadda waa shanfroole isma afgaramayaa la yidhi haye afartii su'aalood saddex baan saxnaa labana waan ka boodnaa waan gartaa marka laba eray ama saddex eray wax nooga sheeg bal luuqadda maadaama aad dadkii aad tahay indhihii bulshada dadkii way ku dhegaysanayaane bal luuqaddaa barta laba eray ama hal eray luuqaddaan barto imika kale haddaad meesha soo gasho qofka yar iyo qofka weyn dee isku si ula hadmaysid haye qofka yaroo ka dee dhalinyarada kale marka soo gasho fiigadiis diibaad iska leedahay waa sax qofka weyna waad yaro xusmanaysaa fiigadiisiinaan baad maxay ku kala duwan yihiin marka bal micnaha af Soomaali ahaan maxay qanaysaa kala duwan yihiin kana waa qof dhalinyaro ah oo fiigadiis iska leedahay baariyo hebel iska warno kala weeyaan waa saas tan fiigadiisiinaan baad leedahay xal leedahay sidii qof mudane bal warqan waa qof aad xushmeynaysid oo ka weyn waa saas marka luuqadii waa la iskala keenyaa waa la iska wada gaariga aad iyo waa iska iman doonaan aad iyo aad marka dhalinyaro waxaan sheegayaa inta halkan joogtay yiri waxaan u sheegayaa dadku horta yurub jooga isku wada mid ma aha sax dadku waa dad dadaalaya qaar waa qaar dadaalay wax bartay sax qaarna waa qaar badda ka cabay ninka badda ka cabay isaga u taala sax kan kalena laakiin ninka dadaalaya dadka yurub la jooga daawin waxaan u sheegayaa war dadkii iyo dabcan kun waxa barataan waxa tabcataan haye bal dadkiini iyo dalkeeni ay nu faa'iideynayeen ha ilaabina waa sax tahriibkana waxaan leeyahay qoftu ma ku soo tiriixtigi tahriib sidii hore ma aha imika waad aragtay dadka wadana soo tahriibay kaliya laga soo baxaa waa la soo qalaa wadnihi waad u idin karto hadii adduunka disa soo daadsan haye tahriibtu waa isbedesho qofka hadii lacagta laga waayaba haye macnaheedu laga guraya waa la qalayaa asaas oo kaliya laga saareeyo beerkii dii khalaas صح وين كان كده wax ka dhacay baashi de Masar de waan la socdaa waxaad ogaataa maanta waxaad joogtaa dhul wada cad waa barf waxaad ka soo tagtay waxay ahayd dhul doog badan oo nimcadii iyo barwaaqadii iyo baraaradii saan isku kor taalo iyo caanihii aad iska cabaysid waxa aartaan muusan wax karda qow waa barfta haye ma nolol baa marka say noqotay lacagtaadii halkaas qabto lacagta laga saaqabta haye waddanka wax noo ka jiray talaagad qabowga loogu tagay bilqowga banaanka yaa la eega waa qudrad ilaahay subxaana yani walla waa adduun marka asxaabi waad ku dardaani ku dambeeyay xidid kaga tagayaa aniga ballankeena dambe iduu insha Allah naftu gaadho sida aan saddex sano hore ku ballan qaadaan ku ri maalintan sharci ama shaqo helo wax kasta ku soo noqon maanta waan soo galay 2019 ama 18 kulankayga dambe soo noqon doona waddanka waxaan idin soo bartay oo aan idin keeni doono hadduu ilaahay naftii noo daayo ilaahay naftii noo daayo aye khayr ay go'aan gaankiisa ay darosh haye